sidaan wada ogsoonnahay noole kasta oo saaran koonkan inta uu noolaado aad iyo aad u kala fog tahay bini'aadanka iyo xagga xayawaanka cimriga. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa daraasaad lagu sameeyay noole kasta inta uu noolaado ee cimrigiisa uu gaadho. fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan like saar, sidoo kale ku soo biir kanaalka. mahadsanid daawasho wacan. Number 1, xayawaanka mayfaley waa xayawaanka ugu cimriga yar noolaha. waxa uu noolaadaa 24 saacadood dhalashada kadib. 24 saacadood kadibna waa uu dhintaa. Number 2, daroon anti oo nooc ka mid ah quraanjada waxay noolaan kartaa 3 cisho kaliya kadib way dhimataa. Number 3, labka kaneecada isagana waxa uu noolaadaa 1 week oo kaliya kadib waa uu dhintaa. Number 4, diqsiga waxa uu noolaadaa 15 cisho ilaa 25 cisho inta u dhaxaysa kadibna waa uu dhintaa. Number 5, didiga kaneecada waa dadka aadka u cuntaa waxay noolaataa bil kaliya kadibna way dhimataa. Number 6, tuqaanka waxa uu noolaadaa cimrigiisu gaadhaa ama 6 bilood oo kaliya. Number 7, jiirka isagu waxa uu cimrigiisu gaadhaa 1 sano. Number 8, xamaamka cimrigiisu waxa uu gaadhaa 4 sano. Number 9, shinnida sidoo kale waxay noolaataa 5 sano. waa tameelka macaan samaysay. Number 10, digaaga cimrigiisu waxa uu gaadhaa 9 sanadood. Number 11, eyga wuxuu noolaadaa 13 sanadood. Number 12, shabeelka wuxuu noolaadaa 15 sanadood. Number 13, bisada waxay noolaataa 16 sanadood. Number 14, looda waxay noolaataa 20 sanadood. Number 15, libaax waxa uu noolaadaa 20 sanadood. 16, faraska waxa uu noolaadaa 40 sanadood. 17, geela waxa uu noolaadaa 40 sano. 18, bini'aadanka waxa uu noolaadaa 63 ilaa 70 inta u dhaxaysa. Wassalaamu calaykum. barnaamijkeena intaas ayuu ku eegyahay. la soco barnaamij kale ku xiga.